soomaalidu dhowr shay intay ka xoroobayso iyana dulligan way ku jiraysaa soomaalidu caqiidadan qabiilka ee diin iyo wadan iyo dhaqan iyo dadnimada ka xooga badan intay jirto ee in reer loo gaaloobo gaalkii ingiriis reer baa loo raaco dad kale loo laayay waxay soomaalidu xornimo doon lahayd reer baa lagu dumiyey waxay dawlad yeelatay reer baa lagu dumiyey waxa iminka axmaaro wada reer baa lagu wadaa waxa la idan caqiida taala ah reernimadu qofka Soomaaliga inay kala qaalisan tahay dawladnimada dadnimada diinta caqiidada wax walba adawga koowaad aan arkayo mujtamaca Soomaaliyeed haysta waxa weeyaan caqiidada si qaldan ay soo haysteen caqiidada waa in laga takhalusaa oo ay bedeshaa dadnimo iyo islaamnimo iyo Soomaalinimo dhaqan ay weyn u bedela hadi waahida kalabaad aan tilmaamayana waxa weeyaan bini aadamku markasta uu hadaf yeesho uu gaari karaa aan ahdaaf waaweyn yeelana reerku waa wax yar misaga qof ma qaada qof han la reer ma qaado reerku waa in yar dhowrkuna qof ba isku reertiin dhowrkuna qof wax madaxnimadooda iyo hogaankooda iyo inta la raadiyo ma xataa dadka hogaanka doonaya waxa inuu hanjiro han weyni inay dadku yeeshaan oo ah war dunida inaan wax ka bedel ka fakara geeskii yaraa inaynu sii tunno intaynu ka fakarayno caalamka bashar baa maamula bashar baanaynu nay idan inuu hankeenu weynaado aynan dunida wax ka bedelayna ka fakarnee tobankan madmadoow geeska jooga uu qaybintooda waxba tarimayso dad han la aan noqono ثالثا waxaan leeyahay diinteena aan dib ugu noqono oo islaamnimadeena qaadano رابعا waxaan leeyahay dadkani intay midoobi karaan ha midoobaan oo hal isku dayo war hadii waxaynu ku kala qaybsanay jira waxaynu wadaagnaa jiro ka badan waxaynu wadaagno oo badan baa jira inahaasi waxaan leeyahay hadii dadku ay ka fakaraan oo si ballaadan uga fakaraan wax badan baa la qaban karaa laakiin inta fikradu ku kooban tahay reer hebel dhulka ma geliye hadda reer hebelkan dhulka wax gelinaya isagu waxba ma helo waa inuu ka kala dhinto waxaan ku faraxsay haddii xataa reerku wax noqon lahaa waxba bay noqon lahayd reerkan kaluun baa dhulka gelisay adigu waxba kuma kordhin ciidu ma ka sii dhimatay laakiin baga ma iga dhimasho badatay weeyaan intaynu doonina shan ma naga dhintay idina 100 baan idinka dilay war 105 Soomaaliyu ma ciida hoos marisay waxba kale ma kordhin idan waxaan ku koobaya wax weeyaan haddii han iyo islaamnimo iyo vision iyo qiyaadaad aragtida leh ay soo baxaan waa wax fudud in wax la bedeli karo xaaladkan ku noolay xaalada ka xun baana dunidu soo marto wax laga bedelay wallahu a'lam